بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim u ah dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan ka caawin kara waa mowduuc aan isleeyahay dhalinyarada aad ay ugu baahi qabaan waa mowduuc saacidaya dhalinyarada shaqo la'aanta haddii aad tahay qof raba inuu bedelo noloshiisa dhaqaale kana faa'iideysto fursadaha yaryar ee la heli karo muuqaalkan waa mid adiga kugu habboon oo aad ku anfacaya isku day inaad ka faa'iideysato mowduucan ka hadlayo maanta waa maalgasho fudud oo aan wax lacag kaaga bixin dhalinyarada shaqo la'aanta aan aad ugu habboon inta muuqaalkan ku guda jirno waxaan kula wadaagi doonaa fursado dhab ah oo aad maanta bilaabi karto adigoo aan haysan wax lacag ah fursado aan ka jirin meel fog balse aad kuugu dhow sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa talooyin ka caawin kara inaad ka fogaato qaladaadka ugu badan ee dhalinyarada ay sameeyaan marka ay bilaabayaan ganacsi maalgashi ama xirfad cusub haddii aad diyaar u tahay inaad noloshaada dhaqaale bedesho nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa ilaa iyo 5 maalgashi oo runtii aan u baahnayn dhaqaale badan ama xitaa aan dhihi karno wax dhaqaalaha ma kaga baxayo haddii noqotana in ay lacag kaga baxdo waxay noqon doontaa lacag aad u yar insha Allah ta'ala maalgashiga koobaad maalgashiga maskaxdaada aqligaaga iyo garaadkaaga maalgashiga ugu horeeya uguna muhiimsan waa maalgashiga aad ku sameyso maskaxdaada haddii aad rabto inaad gaarto horumar la taaban karo waxa lama huraan ah inaad maskaxdaada maalgeliso su'aasha muhiimka meesha taala waxay tahay sidee ayaad maskaxdaada ku maalgelin kartaa waxaad maskaxdaada ku maalgelin kartaa dhowr siyaabood kow akhrinta buugaagta faa'iidada leh ee naftaada horumarin kara sida buugaagta ka hadla dhaqaalaha iyo ganacsiga labo barashada xirfado cusub dadka inta badan waxay ka hadlaan in la barto xirfado cusub si qofka uu helo dhaqaale joogto ah waxaa jira xirfado aad ka baran karto meel kasta aadna ka samayn karto lacag laakiin waxay u baahan tahay ka go'naansho inta badan waxaad aragtaa qof walba YouTuber inuu ka hadlo xirfadaha sida digital marketingka video editingka graphic designing iyo xirfadaha noocaas ah waxaan dhihi karaa xirfadahan waa xirfado lacag laga samayn karo qofkay ka go'an tahay oo si sax ah u barta xirfadahan haddii aad si sax ah u barato waxaad lacag ka samayn kartaa meel kasta oo dunida ka joogto koorsooyinka xirfadaha ku baranayso muhiim ma aha inaad lacag aad ka bixiso waxaa jira websiteyo badan oo koorskan si free ah ku bixiya sidoo kale koorskan waxaad ka heli kartaa YouTube-ka waxaa jira channelo badan oo soo dhiga koorsooyinkan si bilaash ah saddex la xiriir ama la saaxiib dadka aqoonta leh sababtoo ah shakhsiga aad la saaxiibto wuxuu kugu yeelan doonaa saameyn aad u weyn haddii aad la saaxiibto qof ganacsiga si fiican u yaqaana waxaad ka baranaysaa sida loo ganacsado sidoo kale haddii aad la saaxiibto shakhsi YouTuber ah waxaad ka baran kartaa sida YouTube-ka loogu shaqaysto sidaa darteed shakhsiga aad la saaxiibayso ha ahaado shakhsi aad wax ka faa'iidi karto afar dib u eeg naftaada faham meesha daciifka ka tahay kadibna isku day inaad si tartiib aad u horumarso meeshaas arrimahan soo sheegnay dhammaan waa siyaabo aad ku kobcin karto maskaxdaada iyo garaadkaaga waxbarashada waxay ku furaysaa indhahaaga si aad u aragto fursadaha cusub sidoo kale waxay ka caawinaysaa inaad fahanto sida suuqa uu shaqeeyo sida lacagta loo maareeyo iyo sida noloshaada ugu hagi karto si wanaagsan mid xusuusnow haddii maskaxdu ay tahay beerta ama beer aad u weyn waxbarashadu waa biyaha beer aan la waraabin ma dhalato sidoo kale maskax aan la kobcin wax horumar ma gaarto marka haddii aad maanta maalgelin samaynayso ha ku degdegin inaad lacagtaada meel kale aad ku maalgeliso marka hore naftaada maalgeli ku bixi lacag iyo waqti si aad u kordhiso aqoontaada iyo xirfadaada aadna ugu faa'iidaysato mustaqbalka dhow maalgashiga labaad ganacsi yar oo aad guriga ku bilowdo talaabada xigta waa ganacsi yar oo aad guriga ku bilaabi karto ganacsiyada noocan ah ma ahan kuwa kaaga baahan inaad lacag badan aad haysato ama lacag badan aad ku maalgeliso tusaale gurigaad degan tahay inaad qol yar aad ka banaysato kadibna aad ka dhigato timajare ama meel yar oo cabitaanada iyo cuntada fudfudud lagu iibiyo dhalinyarta inta badan arrimahan oo kale way ka xishoodaan laakiin waxay moog yihiin inay ugu fiican tahay meel iska fadhiga maalgelinta noocan ah waxay dhistaa kalsoonidaada waxayna kugu kordhisaa waayo-aragnimo waxayna noqon kartaa bilow riyo weyn oo rumowda maalgashiga saddexaad maalgashi digital ah tiknoolajiyada casriga ah waxay fursad badan siisaa dhalinyarada maanta dunida waxay u wareegtay dhanka iyo digitalka waxaana jira fursado badan oo aad loogu faa'iideysan karo adigoo jooga gurigaaga fursadahaas waxaa ka mid ah e-commerce inaad wax soo iibsato
kadibna aad online-ka ku iibiso. waxaad bilaabi kartaa inaad alaab yar yar aad ka soo iibsato suuqa ama xitaa online-kan aad ka soo gadato alaab kadibna aad ku iibiso internetka sida Facebook Marketplace, TikTok, WhatsApp, Instagram iyo applicationada la midka ah. markaad alaab lacag yar aad ka soo bixiso kadibna aad online-ka ku iibiso qiimo macquul aad saarato waxaad ka faa'iidi kartaa lacag aad u fiican waxaadna ka samayn kartaa dhaqaalo badan. 2 inaad samaysato akoon YouTube ah. maanta waxaan aragnaa dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo lacago badan ka sameeya YouTube-ka iyagoo jooga gudaha dalka iyo dibaddaba. qaar waxay ka hadlaan buugaagta horumarinta nafta iyo waxa markaasi dunida ka dhaca sida channelka Ogaansho oo iska leeyahay walaalkeena qaaliga ah Cumar Inshaar kaasoo dhalinyaro badan u noqday hogaamiye ay ku daydaan maanta. channelkiisa waxaa ku xiran in ka badan 1.2 milyan oo asxaab ah wuxuuna bulshada u soo bandhigaa aqoon wacyigelin iyo warar muhiim ah. sidoo kale waxaa jira dhalinyaro kale oo Soomaali ah oo guulo waaweyn ka gaaray YouTube-ka sida walaalkeena Maxamed Qadar oo ka faalooda kubadda cagta wuxuu leeyahay channel ay ku xiran yihiin in ka badan 1.89 milyan oo asxaab ah. dhalinyaradan waxay muujiyeen in haddii aad dadaal iyo dulqaad la timaado YouTube-ka ka samayn karto lacag iyo magac. marka la imow mowduuc adiga ku gaar ah dadkana soo gudbi adigana waxaad gaari kartaa guul la mid ah guushay dhalinyartaan gaareen. nasiib daro waxaa jira dhalinyaro badan oo aan isku kalsooneen maanta oo mar walba dhaha waxaas ma aan wax suurtagal ah ama anaga ma nihin kuwa ku guulaysan kara YouTube-ka ama majaal kale wuxuu doon ha noqdo oo ka doorbida inay iska fariistaan meel. taasi waa caqabadda ugu weyn ee guushada ka hor istaagi karta. isku dayga mar walba waa faa'iido. haddii aad ku guulaysato waxaad isku dayday waxaad gaartay hadafkaaga. haddii aad ku guulaysan weysana waxaad ka helaysaa khibrad iyo waayo-aragnimo. maanta YouTube-ka waa fursad furan cid walbana ka faa'iideysan kartaa. kaliya waxay ku xiran tahay dadaalka uu qofka la yimaado. bilow maanta waxaa laga yaabaa inaad adiga noqoto magaca ugu weyn ee beri laga hadli doono insha Allahu tacaala. maalgashiga 4 maalgashi agab yar u baahan. haddii aad haysato mobile fiican ama camera waxaad bilaabi kartaa inaad ka shaqaysato photograph ama videograph adigoo dadka ka qaadaya sawiro iyo fiidiyoyo yaryar kadibna ka sameynaya lacago badan. sidoo kale inaad samaysato kontaktiyo loogu talagalay ganacsiyada maxalliga ah sida daabacaadda t-shirtyada adigoo naqshadeynta ku sameynayo qol ka mid ah gurigaad degan tahay si aad ugu badbaado lacagta kirada. maalgashiga 5 maalgashi wadajir ah ama maalgashi iskaashi ah group investment. dhalinyaro badan oo dhaqaale ahaan ku jira heer dhexdhexaad ah ayaa isugu yimid hal meel si ay u samaystaan hal mashruuc oo wadajir ah. sababtoo haddii qof walba isku dayo inuu mashruuc isaga u gaaro u bilaabo ma haysto dhaqaale ku filan oo uu ku fuliyo mashruucaas. balse marka ay mideeyeen hantidooda maskaxdooda iyo waqtigooda waxaa suurtagal u noqotay inay hirgeliyaan mashruuc weyn oo faa'iido u leh dhammaantooda. sidaa darteed wadajirka waa xoog laakiin si uu noqdo mid miro dhal ah waa in la helo kalsooni iyo heshiis cad oo lagu shaqaynayo. qof walba waa inuu ogaadaa doorkiisa mas'uuliyaddiisa iyo wax laga filayo. sidoo kale waxaa muhiim ah in la sameeyo qandaraas rasmi ah oo sharci ah si loogu hortago isfaham waa iyo khilaafaadka mustaqbalka dhici kara. faa'iidooyinka maalgashiga iskaashiga ah. maalgashiga iskaashiga waxay leedahay faa'iidooyin aad u badan waxaana ka mid ah 1 waxay sahashaa in la helo ra'sumaal ku filan mashruuca la sameynayo. 2 waxaa kor u kaca fursadaha guusha maadaama la wadaago waayo-aragnimo iyo xirfado kala duwan. 3 waxaa yaraata khatarta sababtoo ah khatarta waxaa wada qaybsada dadka shuraakada oo dhan. maalgashiga wadajirka ah waa fursad weyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed ugu faa'iideysan karaan si ay u gaaraan horumar dhaqaale. si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in laga shaqeeyo isla xisaabtanka is-aaminaadda iyo sharciyeenta iskaashiga si loo gaaro guul waarta. waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduuceena. haddii aad wax ka faa'iiday mawduucan maanta fadlan video like saar subscribe garee channelka una sii gudbi asxaabta kale si ay ugu faa'iideystaan. mahadsanidin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.